saxaabay meel kasto oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa talaado taariikhduna waa 14 bisha 7 2026 haddaba barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan haddaba warbaahinta carabta kuwa caalamka waxay aad uga hadlayaan hadal uu saakay sheegay ninka la yiraahdo Trump waliba wadamada carabta aad ayaa looga hadlayaa waxa la leeyahay Trump wuxuu weydiistay dawladaha carabta iyo Israa'iil inay lacag bixiyaan lacagtaas oo ah lacagta aan idinku ilaalinayo waa inaad bixisaan Iiraan idinka ilaalinaya ani hadda meesha ka tago Iiraan waa imaanay waxa dhan way qabsanay macal Israa'iil nagtay ka saaraysaa wali marka lacag idinku waardiyeeyaa الحماية وحيو باهنتها العق حماية مركوا إلالين تاسو العقي وباهنت مركوا إنا العق تيسك ديارسان مركا عربتي وحي ليه نكمنا إلاليا هرت دادكي سوشيال ميديا الدولة دي كو شفايا عربتي وحي ليه نكا العق با عن سينا ديبا الله سينا ايه هرت منا إلاليا محونا إلاليا سلدق يدي شيكويا اللي قبلك oo wadamada carabta ku yaala maalin walba la hulcinaya kuwiyo ilaasha laaye marka baxal lacag lagu siinaya waa baad caadi marka ninka waa soo shaqo tagay marka sheekada la yaab kale hadaba aan tuso telefishinka ruushka ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu qorayaa warbixin uu leeyahay Trump wuxuu ka dalbaday dawladaha qaliijka iyo Israa'iil inay bixiyaan lacag lagu ilaaliyo wuxuu lacagta uu ku ilaalinayo Mareykanka inay bixiyaan taasoo laga ilaalinayo Iiraan iyo sidoo kale ilaalada Mareykanka uu ku hayo marinbiyoodka Hormuz haddaba sheekada la yaab kale way sii socotay waxa la leeyahay warbixinta iyadoo laga jawaabayo weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanka Iiraan ayaa bilowday inay beegsato saldhigyada military ee Mareykanku ku leeyahay khaliijka haddaba isagoo arintaasi ka hadlayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka cad isagoo sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono sugidda amniga dalalkan sida uu yiri balse ay tahay inay bixiyaan kharashka adeegaas lagu qabanayo waxaan rabaa in nala siiyo lacag sababtoo ah waxaan ilaalinaynaa qaybo aad u hodan ah oo dunida ka mid ah waxaan arintan ku bixinaynaa lacag Trump wuxuu yiri waxaan lacag ka heli doonaa dalalka aan ilaalinayno sida Sacuudiga Imaaraadka Carabta Qatar Bahrain Kuwait Israa'iil iyo kuwa kale annaga uma baahnin dalalkan iyaga noo baahan waxaan leenahay shidaal aad u badan waxa soo kala haysanaa shidaalka wadanka Venezuela oo dhawaan aynu qabsanay dhanka kale Trump wuxuu yiri wuxuu ku dhawaaqay Mareykanku inuu markaa go'doominta saarayo Iiraan oo go'doominta ku sii wadayo way marka ninkan Trump leeyahay dawladii carabta wuxuu leeyahay lacag keena yab annaga ayaa aragnay taagi maxaa ka lacagta ku dhiibna waa idin ilaaliya maxaa laga ilaalinaysaa Iiraan oo Iiraan annaga naga ilaalinaysa saldhigyada ka ilaasho saldhigyada yaaba nagta laga saarayay marka sheekadaas oo kale ninkii odaga maruu yiraahdo meesha isbaarada ana lacag ku qaadanay lacag keena oday marka meel u socdo iyo meel kale la fahmi waayo carabtii waa wareereen marka way aamusayn cid walba afka haysata Netanyahu iyo kooxdiisa xataa waa aamusayn marka nin walba wuxuu leeyahay Iiraan ay ka ilaaliyaan ani hadda meesha ka tago la ka tahay Iiraan way idin qabsanay kulligii marka sheekadu halkaas ee mare dhanka kale taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen weerarkii xalay saq dhexe ay bilaabeen inay soo gabagabeeyeen maanta barqadii oo mar walba ay meel weerarayeen wuxuu ahaa wareegii saddexaad saddex habeen oo isku xigta weeraro xiriir ay Iiraan ku qaadayeen waxay sheegeen inay meelo kala duwan ka burburiyeen Iiraan haddana waxaa laga baqayaa isla caawa haddana in weeraradii afaraad ay mar kale bilowdaan haddaba arintu soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray taliska dhexe ciidamada Mareykanka wuxuu sheegay inay soo dhameystireen mawjadii garaacista cusbayd ee lagu qaaday Iiraan haddaba taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen
weeraradii ugu dambeeyay ay ku qaadayeen Iiraan iyadoo la sheegay in markaasi ay socotay duqeymahaasu xoogooda uu socday ilaa 5 saacadood taliska dhexe ciidamada Mareykanku waxay sheegeen in markaa howlgalkaasi lagu baabi'iyay awoodda sida ay yiraahdeen Iiraan oo markaa dhibaato ku ahayd isu socodka marinbiyoodka Hormuz sida ay sheegeen waaye marka waxay yiraahdeen natiijo wanaagsan ka gaarnay dagaalka 5 saacadood oo xiriir aan duqeynaynay waxaana diiradda saaraynay meelaha Iiraan ay ka xiri kartay oo ay gantaalaha iyo droneska ka soo tuuri kartay marinbiyoodka Hormuz marka sheekadaas ayaan maanta qabanay yiraahdeen marka ciidanka howlgalkii marka waa soo gabagabeeyay hadda marka waa la nasana caawa noo balano waa habeenkii la isku soo noqonaa meeshaan habeenkii ilaa aroortii ilaa barqadii jugta la iska gelina kadibna waa la kala nasana markay nimankan warka soo saareen Iiraan iyaduna waray soo saareen waayahay waxa iyaguna isla markiiba war soo saaray ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen annaguna waxaynu bartilmaameedsanay oo gantaalo ku garaacnay goobo muhiim u ah Mareykanka iyo saldhigga ciidamada cirka Urdun oo halka ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen waxay kaloo sheegeen inay sawaariikh ku garaaceen goobo muhiim ah oo Mareykanka uu leeyahay oo ciidamada Mareykanka ay isticmaalayeen waxayna sheegeen in meelaha ugu muhiimsan ay garaaceen ay ahayd saldhigga ciidamada cirka ee dalka Urdun marka intaas markay sheegeen haddana waxay soo raaciyeen war kale oo ay leeyihiin maanta weeraradii ay soo qaadeen hal diyaarad ayaynu kala harnay macnaha soo ridnay ayay leeyihiin haddaba wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa waxay leedahay warbixin ay qortay warbaahinta Iiraan ayaa sheegay goor dhaweyd in markaa la soo riday mid ka mid ah diyaaradaha droneska Mareykanku uu leeyahay iyadoo dul maraysay marinbiyoodka Hormuz iyadoo dul maraysay ayaa la soo riday haddaba diyaaradan ayaa nooceeda waxaa lagu sheegay inay ahayd MQ-1 oo ka mid ah noocyada Mareykanka uu ku dagaalamayay habeenadii la soo dhaafay oo duqeymaha ay kaga qayb qaadanaysay dagaalka lagu hayay Iiraan diyaaradda odaga waa laga qarramsaday dhanka kale warbixin guud oo ku saabsan marinbiyoodka Hormuz cidaan iyaga ahayn inaysan halkaa soo mari karin oo aysan amrin ayay ciidamada Iiraan iyaguna soo saareen goor dhaweyd haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Iiraan waxay sheegtay inaanay marnaba dib uga noqon doonin go'aankeeda marinbiyoodka Hormuz afayeenka ciidanka Iiraan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay goor dhaweyd in ciidanka Iiraan aysan ka noqon doonin marinbiyoodka Hormuz tallaabooyinka ay ka qaadayaan haddaba waxa uu sheegay inaan dib loo furi doonin marinbiyoodka Hormuz oo dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan iyo cadawtinimo Mareykanka uu wado inaysan dhici karin in marnaba lagu furo marinbiyoodka Hormuz haddaba waxay sheegeen wadada kaliya ee lagu furi karo inay tahay marinbiyoodka Hormuz in la ixtiraamo waxa ay ku tilmaameen xuquuqda shacabka Iiraan oo ah inay iyagu halka maamushaan oo ay ilaaliyaan haddaba waxa naga go'an uu yiri dhanka kale u sheegaynaa Mareykanka inaynu ka aargudan doono dilkii shuhadadeena gaar ahaan aayatullaahigii naga dhintay Ali Khamenei marnaba ma iloobi doono waa aargudanayna marka Trump ha isku qariyo Netanyahu ha aamuso annagu waa idin sii sheegayna aayatullaahiga dilkiisa wallahi ka tahay inaan la isu dayn doonay ilaahdeen marka afayeenka ayaa isaguna warkaasi soo saaray haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay xaaladda bariga dhexe barnaamijkaygii labaadna inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa fadlan wixii fakar iyo aragti adaysaa noo soo qora like gareeya oo share gareeya barnaamijka ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka aanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen inta aan mar kale kulmayno asxaabay